haatan ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal sidaan toddobaadkii hore idinku warramay allah u naxariistay gabyaagii la odhan jiray Saraan Carabi waa kii duqdhooble la xididay kadib markuu inantiisii cawo dhooble u dhisay meel ka yara durugsan asi aqalka hooyadeed u muuqata waa kii kula aqalgalay oo sidaasna inanlayaalka ku noqday inanlayaalkuna siday u badnayd reerka uu ka guursado muddo dheer lama ood ahaan jirine gu ama laba kadib ayuu ka guuri jiray gabadhii oo lamaanaatay amaba aan weli curan isaga oo wata ayuu u wareegi jiray qoladii uu ka dhashay iyo kolba geyiga ay markaas ku sugan yihiin salaanse hiddahaas ma uu raacine reer xididkiis ayuu dabin isaga dhex nagaaday halkaasoo waraso rag iyo dumar balihi ay ugu dhalatay wuxuu ahaa nin sodcaal badan oo reerkiisa marna u soo hoyda in badanna ka maqnaada had iyo jeer intaynu waayihiisa hadal haynana waa inaan maanka ku haynaa inaanu ahayn reer miyi keliyahe uu haddana ahaa reer magaal ganacsada iyo badmareen intaba wax la isku qabayba iyada oo sidaas loo wada joogo ayaa gabyaaga iyo xididkiis waxaa dhex martay xidhiirkii awalba madmadowga ku bilowday dhacdo uga sii dartay waxay wariyeen maalin maalmaha ka mida inuu reer xididkiis u sheegay inuu maagan yahay berbere inuu safar ganacsi ugu kaco markaas buu hargo subag baal gorayo ahmed awr goolal miirana qoys waliba wixii uu haystay oo ganacsi geli karay farta ka saaray maalintaas buu ciid iyo cayn midkood wuxuu kala dhaqaaqay awr ay wax waliba ku raran yihiinoo in yar mooye tolweynihii uu la xididay ay lahaayeen dabadeedna waxaas oo badeeca ah kolkuu caddaystay ayuu markab xeebta taagan inta dusha uga baxay shaqaale ka qoftay sow markaasna xididkii safarka lahaa garaarta kagama dhegin oo sow maantaa kadib nin u godobaysan salaad ma noqon iyada oo cawo iyo carruurtiiba aanay gacantiisa ku jirin inkastoo aanu marnaba gabayadiisa ku soo qaadin haddana Saraan iyo xididkiis colaadii ka dhex torantay dhacdadaas ayay salka ku haysay waxaa soo raaca isaga oo mar walba go'an jiray inaan lala yadad soormin oo siduu dhaqanku ahaa xoolihii uu cawo ka bixiyey aan reerku waxba uga soo noqin sababuhu labadaas ha ahaadeen ama ha ka badnaadeene la kala irdhow wuxuu carreeeda ku maqnaadaba beri dambe ayuu soo noqday isaga oo ay ka go'an tahay wixii dhacaya ha dhaceena aqalkii ay cawo dhooble joogtay inuu isdul taago hase ahaatee xigtadii ayaa hamigaas ku diiday weliba uga dhaaratay xagga reeraha wararkii ka soo yeerayay kuwa fiican ma ahayn waxaa kolba loo soo tabinayay in kow looga siin doono hadduuba ciid cagaha soo dhigo reer dhooble hadday bixiyaanna waxaan marnaba bixin doonin dadkii kale ee wax ku lahaa safarkii uu berbere ula kacay sidaas buu taladii xigaalada ku yeelay tashigiisii horena uu kaga haray wuxuu Saraan ka mid ahaa maansayahanadii Soomaaliyeed ee markay cid isqabtaan gabayga ku cadgoosan jiray xidid iyo xigaalana aan uga bi'i jirin wuxuu sida muuqata ahaa nin hadduu gardarro dareemo inuu maanse ka celiya mooye dadku tiraabka uu ku wada xaajoodo aanay ugu bixi karin xagga xidid ugabyidana tixihiisa seediyaal oo keliya kuma uu ekayne wuxuu ku macjuufeeyey sodogii dhooble seedigiis rumaad maxamed dhooble afadiisii cawo dhooble iyo sidoo kale qof dumara oo ceebla dhool uu ku sheegay aana filaayo hablaha reeraha inay ka mid ahayd isagana dumaashidiis ahayd kala irdhoobidii isaga iyo xididkiis wixii ka dambeeyey gabayadii uu tirin jiray midkood ayuu dhowrkaas qof ku magac dhabay
isla gabaygaas ayuu haddana kaga calaacalay xoolihii yaradka ahaa ee uu cawo ka bixiyey kuwaasoo uu kala mid dhigay wax uu meel cidla ah ku shubay dhulkii uu reerku deganaa waa isla gabayga uu ku haaraamayo ee uu ku sheegayo xoolihii uu bixiyey in wax looga soo celiye iska daayey waagii uu reerka inalayaalka ku ahaa inuu caato joogsaday cabashadaas qotada dheer labadii tuduc ee uu salaan u xambaariyey ayaa waxay ahaayeen meeshaan calow waalidkay lagu cisaynaynin nin isoo cawaansaday halkaan cidiba eegaynin ee dhooble camalkan ogaan la cumbullaynayey ee sida carruuraha waxaan cunaba sheegayey meeshii cawiyi ceebla dhool lay cambarinayey ee maxamed curadku u ahaa laguma ciilbeele xakamaha casuusta leh waxaan xamar ku caateeyey sida kayn cagaar badan waxaan xamar cilaan saaray cuudkii aan maray geelashaan carajidii u gooyey caatubara'aan baan anigu caato soo dhacaye micedlaan ku qubay xoolahan curayay waa noolba inkastoo isaga iyo xididkiis ay qardoofadaasi ka dhex aloosnayd haddana salaan marnaba afadiisii cawo kama u quusan wuxuu rabi lahaa dadkii safarka lahaa meel uu kaga nabadgeli karo inay ku wada dhaqmaan wuxuu jeclaan lahaa intay si uun ugu soo wareegto degaanka tolkiis inay wada joogaan waxaase beryaha ku soo duushay in iyadiiba la baayacay kadib wadaadadii reeraha markii laga helay iyada iyo salaan inaan meher isu haynin marba hadduu intaas oogu ka maqnaa wax masruuf iyo marashi ahayna aysan xaggiisa ka soo gaarin kolkaas baa waa siduu maqlae cawo la soo doonay ragga qaarna yarad hor le aabbaheed ugu yaboohay dabadeed isaga oo wararkaas iyo waxa uu ka yeeli karaayo rogrogaya ayaa waxaa halkuu joogay ugu yimid saydigiis maxamed dhooble kaasoo u soo jeediyey cidina haatan wax uma haysatee ciid iyo reerkiisii inuu ku noqdo isaguna uu u galbiyo taasna dabinkabood buu ahaaye wuu iska soo taagay maalintaa ayuu tiriyey gabay dheeroo uu maxamed ku halqabsaday la xididkii reer dhooble gabay uu kaga qoomamoonayo gabay maansadiisa kuwa ugu quruxooda badan lagu tirin karo dhammaadka gabaygaas ayuu saydigiis ugu soo jeediyey hadday la qumanaato inuu cawo u soo wareejiyo taasoo uu daba dhigay hanjabaad laga garan karo inuu ka dareeri doono haddii afadiisa rag kale lagaga yaro qaato wuxuu yidhi in aanan goosan karin naaga kale go'ay haddaad mooday qajeelaha gayaan badan yahay waxaan idiin gaatay amaan guuyadaydii u horay geeda sarawaabe mar haddaanay garowshiyo xidid gumaladeed joogin isma gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruune waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomaay gafna ha igu noqotee haddii guuyo la ii siiyo anaan gabadintiinii tegayn gurigii reer dhooble qoftaad gacal ahaydeen haddaad garata ii soo rar haddii kale ha guursado raggay guga la sheegayay dabadeedna guul waxay dhasho iyo godobta aan dhow rabno waa dambe oo uu gaboobay ayuu saraan guursaday sidii berigii horese gabadhii uu maantaa guursaday waxba kama u bixin markaas baa waxaa loo soo sheegay saydigiisa oo yaradoonihii inuu ku soo socdo dabadeedna isaga oo ay ka go'an tahay moogaan inaan wax xoola a laga kaxayn ayuu tiriyey gabay yaradka loogu soo socdo uu ku diidayo waa gabayga uu ku xusaayo labada sababood ee dartood aanu yarad ku bixinayn midi waa xoolihii faraha badnaa ee cawo dhooble uu ka bixin jiray welina uu ka cilqabo midda labaadina waa da'dii uu maantaa joogay oo aan u oggolayn isxilqaan hor le iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro waase arrin uu saraandooda ku marsanayee gar ma ahayn oo oday coobira iyo barbaar cartii qaba ku ahaadaba hidda ahaan cid yaradka laga dayn jiray ma ay jirin yeelkeede wuxuu aragtidaa ku xusay laanleydii qurxoonayd ee inteeda badan uu kaga calaacalay gabowgii uu markaas la tiicayey isaga oo haddaba u dayrinaya saydigiisa oo aan weli soo gaadhin waa kii tixdaa ku soo gabagabeeyey isaga inaan waxbixini ka soo dhoweyne ninka ku soo socdaa uu halkiisa iska joogo haddii aanu isaga wax u wadin adigoon lama'a awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waan nacabahay laanta dheer side seedow ha igu soo lugo'in
lahasha waa ceeba buuri. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo walo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo. mahadsanid axmed faarax cali idaaja ayuu kaasi ahaa iyo dhaqankii hidaha